الحمد لله عروري waxaan baranaynaa haddana cashir ka mid ah cashiradeenii noo tixnaay ee xarfaha carabiga ee quraanka uu ku qoran yahay xarfaha carabiga laga bilaabo alif ba ta ilaa iyo ya ee hoos kala maalay ee waxay u qaybsamaan qayb wax lagu dari karo oo wax ogolaanayo amba si kale haddii loo yiraahdo qayb mas'uuliyad qaadi karto cunugu markuu laba jir yahay in loo dhiibo nolosha guriga la mas'uul ayaa ka tahay ma dhacdo inta badan laakiin mugu soo gaaro 15 da'daas mas'uuliyad weyn ayaa saaran guriga nolosha guriga loo dhiibaa waxa la leeyahay inta adiga ka mas'uula waxa la leeyahay laxdaada lagu xudumay ilaasho waxa la leeyahay yani nolol weyn ayaa saaran qofkaas baalig waay muga xuruufta ay waxay qaybsantaa qayb baalig ah oo qaangaar ah oo mas'uuliyad qaadi karto iyo qayb aan qaadi karin mas'uuliyad ee laba jir kow jir ah qaybta aan mas'uuliyadda qaadi karin ayaa yar daa'iman haddii lagu yiraaho wax lagu kala saaro waxaa la qaataa midda fudud haddaan ku yiraaho gurigan yousan soo gelin qof aan ka ahayn cabdullaahi waxaan ku yidhi gurigan qof aan ka ahayn cabdullaahi yousan soo gelin uma baahnin inaan ku yidhaha gurigan maxamuud you soo gelin xuseen you soo gelin cabdikariim you soo gelin cabdiraxmaan you soo gelin xaliime you soo gelin haakada kaliya waxaad damoosahe bis qof kasta oo soo gasho waxaa leedahay waraaqdada ay tusi cabdullaahi ma lagu yidhaha maya iga naqi hariya cabdullaahi ma lagu yidhaha haa yaa soo gal kaliya waxaad damoosane cabdullaahi bis muga xarfaha waxaa yar kuwa aan wax ogolaahayn oo aan mas'uuliyad qaadi karin ayaa yar عرفت وحيت هذا الحروف العنيدة عمل أساس يعني حروف حرفت مدح عدك أم حرفها ذي جديد كأساس عمل مجا سومالي أهان دي أنكو صانو حرفها عن مسؤولية قاضي كرين أيان لأنها حرفها عن مسؤولية قاضي كرين أنت أيجا لقرا وحلو مدري كرو مثلا حرفها مسؤولية عن قاضي كرين هذا كسو قاضي واو أنت قرتيد وها قرتيد هذه واو اسمه مدري كرتيد haddaad wow qortay ku darto wuxuu noqonayaa fa amba qaaf oo dhibca la'aana wayo wow dhibca la'aan oo ahay fa hal dhibcay lahayd sidaan ku ogaay haddii aan laga bedelin qaaf laba dhibcood ayuu lahay muga haddii aad wow qorto ee aad ha ku darto ee aad la ku darto aad kor dhigto waxay noqonee waxaad ka rabtaa in noqoto wahala muga wow ha lagu madari jirin ardaygu wuxuu leeyahay waxba qaldan okay fahala amba qahala tiimigaas ula qunaato ayuu qaadan doonaa biin ilaahi tacaala muga haddii aan ka soo qaadno saas oo kale laakiin xaraf wax qaadanayo xarfihii aan madaxa adkayn ka mid ah ka soo qaad miin oo kale miim waxaa ku darta ha waxaa ku darta laan waxay noqonayaan marka mahala wayo miim xarfaha wuxuu ka mid yahay aan madaxa adkayn ee wax qaato muga xarfahaas مثلا wow oo kale bilowga haddii aad qortid wax kuma dari kartid dhaxda haddii aad gelisana wax kama sii dambeysii kartid markastaba wax ma qaato waxbana laguma daro mas-uuliyadna ma qaato meesha ugu dambaysa ku jiraa mugashow aso meesha ugu dambaysa ayuu ku jiraa xarfahaas waxaa lagu soo koobaa yani jamacay leeyihiin laakiin jamaca adiga ayaa lagaa rabaa inaad ilaashato jamaca lagu soo koobo adiga ayaa lagaa rabaa inaad damuusato laakiin sida guud haddii aan dul marno waxaa waaye 7 xaraf raalli ahaada waxaa waaye 6 xaraf 6daas xaraf haddaad quraanka ku aragto waxa ku darin haddii lagu yidhaho qor مثلا alif oo kale ka bilow alif haddii lagu yidhaho qor ee lagu yidhaaho cayn qor ee lagu yidhaaho miin qor iskuma dari kartid acaama ma dhihi kartid amba aciimu ma dhihi kartid waa inaa alif ka qortid kadibna caynka iyo miinka isku dartid waayo caynka iyo miinku xarfaha waxay ka mid ahaayeen isqaato ee aan adeeg diidka aqoonin laakiin alifka adeeg diid ayuu yaqaanaa muga waxaa lagu yidhi ka soo qaad daal lagu yidhi ka soo qaad daal korkaale lagu yidhi qor waxaa ku dartaa qaaf korka lama leh ha wax ma leh waxay noqonaya marka daaqaha ay noqonaya daaqaha muga inta daalkii qortid qaaf kuma dari kartid daalku wuxuu ka mid ahay haddana xarfaha aan qaadanayn wax ku daritaanka muga 6daas xaraf waxaa ka mid ah alif waxaa ka mid ah daal korkaale waxaa ka mid ah daal amba deel anuu labadaba waa laysoo baray daal korkaale iyo deel waxaan ka wadaa daal wax male iyo deel wax male way macallimiinteen waxay dhihi jireen daal korkaale deel wax male sababta ay taas u leeyihiin waxaa waaye
si ay nagu kala soocaan oo aad u kala ogaato kan aan wax lahayn iyo ka wax leh. sidoo kale qaaf korka lama leh goyn korkaa leh goyn inkastoo hadda la sikiyo qaafkii loo ekaysiiyey. anyway macalishaadkeenna wuxuu ahay xarfahan inaan hadda kala baranno wax lagu dari karo caruuray iyo xarfa aan wax lagu dari karin. xarfahan wax lagu dari karin ayaa yar. waa alif, waa daal, waa deel amba daal. waa midna wuxuu leeyahay dhibac, midna dhibac ma lahan. saddex mooho waa za korkaa leh, haddana waa afar. waxaa waaye haddana ra' wax ma leh. waxaa waaye haddana waa wax ma leh. lixdaas xaraf haddaad ku aragto qur-aanka waxba ha ku darin. dhaxdana ma galaan, bilowgana ma galaan. sidooda u qori kartaa bas wax laguma dari karo. xarfaha wax lagu darin ayaan ku soconnay. kubadaas inta ka soo harto dhan waxaad ku dari kartaa wax kastoo aad u baahato. ujeedaa kubadaas inta ka soo harto wax kastoo ku dari kartaa. masalan aan soo qaadano kha, aan soo qaadano kha ayaad qortay, waxaad ku dartay ha, waxaad ku dartay cayn. waa kha kor dhigan, ha kor dhigan iyo cayn kor dhigan. waxaad dhigi kartaa khahaca aad dhigi kartaa. masalan qaafaad qortay, kaafaa ku dartay, miinaa ku dartay. waxaad dhigi kartaa macnaa qaaf waxaad dhigi kartaa qaakama. qaafaad qortay, kaafaa qortay, miinaa ku dartay. xarfaha kasoo haro dhan ya oo kala damo. yastamicuuna alqawla mujeedido siinay qaadatay. siinki dhexda ugala haddana ta'aa kusi darsoonta. haddana ta'da haddana waxaa kasi daba mara haddana miin, haddana cayn. mujeedaa wowga mugi la yidhi nuun laguma darin. yastamicuuna alqawla wowgaas nuun laguma darin, waa laga reeba nuunki. sababta looga reeba waxaa waaye wowgaas wuxuu ka mid ahay xarfaha adeegdiidka. wowgaas wuxuu ka mid ahay xarfaha adeegdiidka ah ee aan waxba qaadanin. muga lixdaas xaraf qur-aanka haddaad ku arto waxba ha ku darin. waa alif, waa daal, waa daal amba deel taarabtidahe, waa ra, waa za, waa waaw. lixdaas xaraf qur-aanka meeshaad ku aragtid amba xarfaha carabiga ah wax kale laguma dari karo. sidooda ayay u shaqeeyaan. waa xarfo adeegdiid ah ee aan waalidka warkooda maqlayn, ee aan loo tali karin, ee fayakooniya, ee lowkaan ah. inta ka soo harta qur-aanka haddii aad aragtiin wax allahi wax aragtiin waa ku dari kartiin. hada wabillahi tawfiiq.